adigoo og waxaan qalad inuu yahay in cunugan taabto haddana isagana naftiisa wax u keenayo in aa meesha usii dhigtid qalad waay, wax fiican ma aha. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kusoo dhawaada channelkeyga iyo video cusub. maanta waxaa rabaa in aan idinla wadaago 3 advice aan jeclaan lahaa in oo la ii sheego before ama after cunugteeda ugu horeysa dhale, ama aan u sheegi lahaa ugu advice gareyn lahaa waalid cusub ama parent cusub. advice-ka ugu horeeyo waxaa waaye maxaa la dhihi jiray, cunugaaga markuu crawl gareynayo uu crawling-ka bilaabo uu maxaa la dhihi jiray, liana waqtigaas ugu adag cunuga everything uu dhulka ka helo wuu afku gashanaya, wuu ka qaadana meesha. so marka waxaa sameyn kartaa every time cunugaaga aa aragtid in uu dhulka wax ka qaatay in aa helinin oodan dhihin allah waxaas wasaq waay, like usually reaction weynaa bixina instead of asaas sameyn lahayd in aad sameysid cunugaaga intaa oo la hadashid oo u wacdid, liana cayaalka markay crawling bilaabaan hadaa oo hadashid way kusoo fiirinayaan, way ku fahmayaan. so in aa la hadashid oo dhahdid allah waxaas maxaa waaye, ama wax untusisid tartiib marka u tagtid oo tusisid inuu waxaan wasaq yahay, dhahdid okay kan waxaa ku ridaa qashinka, ii dhiib shaxshax. markaasna cunuga like uu ku dhiiba waxyaalo badan uu baranaya, wuxuuna baranaya wixii dhulka laga qaaday ini oo afka la gashanin bad oo lagu rido qashinka. so already waxaa baroosa cunug isagoo yar, laakiin markaa qaylisid afku hore usii gashanaya, markaas more risky. Tipka labaad waxaa waaye in cunugaaga wax kasta aa rabin inuu taabto ama riski u oo wax u keeni karo dhibaato, in aaba ka fogeysid uusan arkin cunuga, liano markaa cunuga oo wixii ka fogeysid waxaa u diyaarinaysaa isagana inuu ku guuleysto ama successful ku noqdo inuu raaco rulka guriga. laakiin markaa cunugii adigoo og, liano cunuga intuu yar yahay curiosity u geenaysa wax kasta inuu taabto, wax kasta inuu ogaado rabaa. adigoo og waxaan qalad inuu yahay in cunugan taabto haddana isagana naftiisa wax u keenayo in aa meesha usii dhigtid qalad waay, wax fiican ma aha. so marka cunuga inaad ka fogeysid everything uu aa ogtahay u fiicneen inuu taabto cunugaas. midka saddexaad waxaa waaye cunugaaga inaad choices siisid, wax kasta aa qabanaysid, wax kasta uu cunuga diido ama aa rabtid inuu sameeyo choices si. okay haduu maxaa la dhihi jiray markuu toyga ku cayaaro uu nadiifin waayo, waxaad dhahaysaa okay ani waxaa kuu qabanayaa trayga, adigana kusoo rid, ama adiga ma qabanaysa anigana waa ku ridayaa toyskee. so marka choicekaas markaa siisid isaga option kale ma laha, shaqadiiuu qabanayaa at the same time laakiin two choiceskiis waxaa waaye ama inuu trayga qabto ama alaabta inuu meesha ku guro. marka you don't have to inaa ama qaylisid ama ma u baahnid, just waxaa dhahdaa okay choice ku siinaa kan, aniga kanaa qabana adigana kusoo shub, liano at the same time shaqadii waa qabanaysiin. so the point waxaa waaye shaqadii waa la qabanayaa but at the same time cunugku lagu qasbay ma qabanayo, isagiyo ku faraxsan wuxuu qabanayo uu qabanayaa. saddexaad oon ugu dambeeyo, midka saddexaad waxaa waaye inaa cunugaaga choices siisid. cayaalka intay yar yihiin like labada wax ama wixii aad tusisa ma ahee wax kale maskaxdooda ma soo galaayo. haddee noqoto maxaa la dhihi jiray ii sheeg dharka xiranayaan, haddee noqoto like wax haddee rabaan waxaas, markaas waxaa dhihi kartaa kanaa sameyn karta anima kanaa sameyn karta. intuu yaryahay haddaa dhahdid kan maa rabtaa mise kanaa rabtaa, usually wallahi it works, si fiican u shaqeysa. ani personal weliba marka oo aan arko, liano sometimes waa ilaabaysaa, so markaan arko inaan okay choice kale ma haysti maxaan sameynaa,
aan soo xasuusto Joyce inaan siiyo okay waxaan maa sameynaa miskaasa sameynaa aa dhaho wallahi most of the time way shaqeysaa most of the time way shaqeynay lianna cunuga waxaa siisa control wuxuu dareema inuu isagana control haayo ma dareema inaa like camal dhihaysid okay meeshaana la aadaa daase isoo dabagal maxaa la dhihi jira wax cuntadaana cunayaa bis maxaa la dhihi jira adiga you don't have a word ina ka dhahdid waxaa aniga ku dhexe laakiin hadduu dareemo cunuga inuu maxaa la dhihi jira isagana uu Joyce haasto Joyce siise it's more likely inuu waxa adiga oo weydiisay ama waxaa rabtid inuu sameeyo so marka hal mida ku daraya one bonus advice ku dara advice afraadan ku dara waxaa waaye cunuga markii oo maxaa la dhihi jira camal aa rabtid wax inuu sameeyo uu isagana rabo wax kale inuu sameeyo markaas waxaa dhihi kartaa instead of aa dhihi lahayd waxaas maxaa la dhihi jira ma sameyn kartid kan horta samee markaas like no saas ma ah like haddaa dhahdid waxaan markaa horta kan sameey ma sameyn kartid waxaas ilaa aa kan sameysid waxaan ma sameyn kartid ilaa waxaas kale aa sameysid haddaa dhahdid maxaa la dhihi jira isheeg like amar waaye laakiin haddaa dhahdid okay kan markaas sameysida markaas aa sameyn kartaa kanna like I don't know difference inaad fahanteen lianno waxaan when you do this then haddaa isticmaashid instead of kan horta sameey marka kan horta sameey kaas markaas sameyn kartaa I don't know if that makes sense anyway waxaa ka wadaa like cunuga marka oo like wax wuxuu rabo inuu sameeyo laakiin adiga aad rabtid before waxaas sameynin inuu waxaan kale sameeyo waa inaad ama for example homework cunuga homework hadduu u yaalo oo maxaa la dhihi jira tvna uu rabo inuu daawado waxaa dhihi kartaa markaad dhameysid homeworkaaga markaas haddaa rabtid waa cayaari kartaa haddaa rabtid waxaa rabtidaa sameyn kartaa so marka conditionka waxaa waaye inuu horta homeworkiisa dhameeyo laakiin sida ugu sheegtay waxay tahay si oo isaga oo like maxaa la dhihi jira fight mood gelinaynin camal ama waa xukumooya camal uusan dareemeynin so marka afartaas advice aan siin lahaa qof haddii aan arki lahaa waalid cusub ama aniga aan jeclaan lahaa in oo maxaa la dhihi jiray afartaas advice inay la isiin lahaa cunugeyga ugu horeeya markaa haystay afarta maxaa dhahne waxaa waaye midka ugu horeeyo cunugaaga haddaa aragtid cunugaaga yar isagoo oo like wax dhulka ka qaadanayo ha qaylinin tartiib ugu tag tusina waxaas inay wasaq yihiin oo taraashka lagu talagalay afka lagu talagalin pointiga labaad wuxuu ahaa cunugaaga wax kasta aadan rabin inuu taabto ama isleedahay riskiyu ku yahay inaad ka fogeysid maxaa la dhahaa aragtidiisa inaad ka fogeysid ama inuu meeluu arkeynin inaad geysid pointiga saddexaad wuxuu ahaa adviceka saddexaad wuxuu ahaa in oo maxaa la dhihi jira cunugaaga Joyces aad siisid si uu u dareemo inuu in control yahay and also waxay kaa safe gareynaysa waqti badanay ku safe gareynay and at the same time cunugaaga wixii isagu ku faraxsan uu sameynaya instead of adiga ku qasbi lahayd midka afaraad oo extra idinkugu daray waxaa waaye sida ugula hadlaysid inaa markaa oo instruction markaa siinaysid in aad oo inaway u hadashid oo amar ku jirin oo laakiin oo maxaa la dhihi jira at the same time aad dhehaysid waxaan sameey markaas waxaas sameey maxaa la dhihi jira isagoonan oo dareemeyn camal inay la controlayo oo wixii caadi u arko marka waxaa rajeynaya inaa wax ka faa'iideen afartan advice
haddaa videogan wax ka faa-iday insha allah like saar. haddii aad rabtid videoyaal badan oo ka hadlayo cayaalka sida loo koriyo, parentingka, cayaalka sida wax loo baro, advices oo ani professional ma ihiba laakiin so far waxaa ka bartay as a parent maxaa dhihi jira aan rabaa inaan idinla wadaago. soo haddaa rabtid videoyaal waxaas ku saabsan insha allah don't forget inaad subscribe saartid si oo every time wax aad soo gelisay u aragtid insha allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.